السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داوضيال meel kastoo daafaha caalamka naga daawanisaan kuna soo dhawaada warka telefishinka caalamiga Ariel TV oo aad kala socotaan xarunta uu telefishinka ku leeyahay magaalada Hargeysa. warkana waxa idin la socotiinaysan waa Simsan Cabdullaahi Asmaan. qodobada aad daawadayaal warkani ku daawan doontaan waxa kamid ah barasaabka gobolka Togdheer oo ka hadlay gaari sidee rasaas oo ciidamada booliska Soomaaliland ay qabteen. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa booqday dhaawacii shaqaaqada ka dhacday Daraweyne. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Hargeysa ayaa taageeray go'aankii dhawaan ka soo baxay golaha wakiilada Soomaaliland ee qeexayay in xilka laga qaado maayirada dalka Soomaaliland. wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay shirkii toddobaadlaha ahaa ee suduwayaasha gobolka Togdheer. safaaradda dalka Djibouti ay ku leedahay magaalada Hargeysa ayaa bulshadeeda ku dhaqan magaalada Hargeysa ugu baaqday inay ka qayb qaataan doorashada baarlamaanka dalkaasi Djibouti. daawadayaal qodobada iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa warka telefishinka caalamiga ee Ariel TV oo idinka imanayay xarunta uu telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa. intii haatan ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale faahfaahsan.